marka asxaabay dhalinyarta kale loo soo socdo waxaan leeyahay ayagoo la hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya cadaaladna waa u baahanahay soomaaliya haddii aan xisbad iyo mataqaanay wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa waxaad ii banaan baxaanaad ii istaagaan taasi waxaa waaye waa baryo aan idinka baryaya anigu waxaan diyaar u ahay haddii aan maanta sharma way maqlaaya haddii aan caawa xaq u dhimanayo wallaahi billaahi tallaahi diyaaraan u ahay in laygu dilo xataa. السلام عليكم دمان أصحاب شرفت السؤال وهذا مرة بعد مرة صدحات كنال كذا قداونا سما خضر في الشيء الفضل نديت كنال كعصب تاي أنا دافين سبسكرايب تيلات وحاجة المقال كينيسي درمتي والمقال هذه يد أمور قبلا قف كستو دمير لنا وكدم قنايو عدو الباص ومالي هنا والدمير نما يكجرتو أي كدم قنايسو مقالكم حبرتي في يوتيوب سوق لي نكرو لو ياسين هلي وأهني المكرانس هاي هذه تشير قرب استاجا دلنيرت الصوماليات وحي ظلم لوها يعدي كلامه بالمقال كان أسلوب ذاقنه إن شاء الله. waxaan usoo caafimaadka siiyo kuwa geeriyooday jannada udgoonada hor uga yeelo kuwa laga geeriyooday asamir imaan ka siiyo kuwa dhashaysta ee baadha shaqo barakeeyo kuwa dhal suga indho badan barakeysan siiyo maraan bulshada Soomaaliyeed oo midana Allah wuu weydiisanaya amiin waxa dareenkaygu caawa dareemaya marna waa ceel marna waa dadnimo iyo damiir iyo ahliyadii Soomaaliyeed wali nool yihiin SYL ma aha kuwa dhamaaday kaasa anagoo kula dareemaya diino waxaan u galnay inaan ka dhalinyarada shaqada ayaan daawaday muuqaal uu kaga hadlayay sharma boy iyo deeq darajo dulmiga loo geystay dawladdu wuxuu tilmaamay xaq inuu yahay mid ku dhimanaya way muuqatay maanta waka inuu geeriyoodan waxba dhacay hadaba intaan barnaamijka faalihiisa galin bulshada Soomaaliyeed ayaa maanta dareenkooda iyo dadnimadooda iyo inta damiirkoodu nool yahay kala ogaanaya asxaabta taariga waxay la hadlayaan oo nasaan dhaawacay maclaamiin amin إنك هو على محمد آمين يحيى وإن المدرسة يوتيوبر ودقن كينيا ومدرسة دنيرته مشاكل هذه الشركة قصلي كنال كيسان كحرنا هاي أنت بدن عن دعوضه عاو مركان أشكي وجهي يعني السر لوجالي لا قف كستو دمير له والدمير كتيره وكذا قنايا. حاوي وحاي يقول عضي أنا كلي يدري وحاوي ما دام عن عدالتي حقها كاوي oo aan ka hadlay runta jirto ee sharmu qoydi deeq darji loo geystay waxa dhacday maanta markay saacad weysay hal saac weynimo waxay soo wacay dhalinyaradaas ka koobnaayeen ilaa ku dhaastay waxay yiraahdeen ilaa ku dhaastay inaan ka wajigiisa loo galay bidaaw isii loo bedelay waxa lagu dilayna waa wax ma garaysa maala yacni oo basiida wash baba kullu qaar ana qoom leeyahay قالوا دليرة شقينا فوق. شبابا كسكوي هذا ديال مستي قال أبوها وحال علي إلى ذكران وحال ويا كلال على أو كل على كلال كلا على أريك شرب بوي وحياة كسبسن حي برا ديال واي حلك وقبي. أردت شرم بوي وإسكالات تقطي هسالو سمي كانوا سمي وحنانو سمي يعني سلفت دير مفاتي سلسلة دير وبرنامج اللي قصو الشقي وضد اي قصو الشقي ما يبحان اللو بكان دي نينو يهيسان اللي يقضى فريو وحيالها كان اللي يقضى فريو وحد وحي مرسا إني سجلو وحد علي دليلتي إلى أوتوغو ولكن أوتوغو إلي قريب بيشتغل وإذا لا بلاد إنتا قصو وحمدا إيوت وحي أريو قابل كوزي جروح وحالي بكر وعيني كريا هذا أحمشي حبشي بكري وعي وحيرا كل جبتا وكل واريا أنا وحاسي أحمد رشيد لو مرة لازم جسكو كوكانا مسكين اللي تويا غربتي يدل لكو قيسنا إلى أول مجيب نيكاس سنة يشرم بوي يدار درجو وكو يلا صدر نيكاس وكو كيف الشيء من الأول هلي نيك حلال كل شيء راجل نما يدمير الهيسي isagoo caaw la jeediyana waxay muujinaysaa soddon kale dulmi ku dhiman lahaa noloshooda ifaysa ku badbaadin Axmed Rashiid iyo 10 kale oo caqligiisa leh oo cawaan aan rag oran karin ninkaas message-ka yani la soo dhaxmariyay markii la dilay
ama sidan loo galay wejigiisa masaajidka lasoo dhex mariyay in rag kalena loo soo socdo oo Kenya jooga. maanta isagoo xag alluu ka badbaaday, xag alle ayuu ka nool yahay, balse laakiinse masaajidkaasaa muhiima lasoo dhex mariyey. nimankaasuna waxaan leeyahay hays jiraan kole kaa dhalinyarada ayay toban isugu soo raaceen. calashaan sideebaad u hadashay, calashaan sideebaad u wareysatay, calashaan sideebaad dulmi uga hadashay. والله وجيسي نكنا وجيسي imisa kibir badan oo gaala ah oo kana cusantooda gashay. جيسي دلك dhiigaad ka daadiseen bulshada Nairobi joogto oo Soomaaliyeed ogaada inay ka dhigayaan oo inay ka hadam qashadiis ay noqonayso mid hoog idin horseeda. dadka Soomaaliyeed kala dhamaan kuwii dadnimada iyo damiirka ahaa ee naftooda hor dhigaya dulmiga inay ka dhigayaan. miyaad ilowdeen SYL, miyaad si ilowdeen kuwii xaashida كو أنا كا أنت ما أنت تاجر سنير كاس إجرب سينسا وحكستو وجرب لو سينيو miyaad ogeydeen oo ilowdeen kuwii Etoobiyaanka hilibka ceerin baray dhashoodii dhacaankoodii iyo dhiigoodii baa no idinkuna hoog baad ku sugan tihiin. waxaan maanta waxaa lagu tijaabinayaa bal dhalinyarta Soomaaliyeed damiirkoodu siduu yahay, ma qabyaaladda ma qabiilka ka weyn mise bilaadanimada. wax kale ma socdo, waa tijaabo, waana lagu tijaabinayaa maanta. kan haddii laga aamuso oo loo kala baxo yani ogaadeen iyo loo kala baxo iyo ma jirteen, haddii loo kala baxo oo intan ay sheekadu kasii ballaarato filimkii la rabo dhan waa lagu socodsiiyey. markaas waxaa rabaa dhalinyaradii Soomaaliyeed in la iska horkeeno, in madaxa la isu geliyo social media, in laga bilaabo silsilada yani qabyaalada oo sii socota ma jirteen ogaadeen sii soco ilaa ay hoos la socoto. haddaadna dhexlaysaan dhibaatada geysateen. haddaba inay kaga dhalinyarada waxa isugu tegay waa toban. fuli baan u arkaa nin raga marka aad toban u ka haysato inaadan darajo lahayn. dhaqan Soomaaliyeedna maaha, gobonimo iyo ficilkeedna maaha. والله أفكر وتشوق دقمين مقال كم بكرة أفكر وتشوق دقمين والله عبسي عاد اسكليسيت واحد اسكلي قلت قلت بيلا اسكلي قلت بيلا ما دام ادم الحين صح كوز عمل شيء وحول شيء سايتاي يردلو رجعتو كده رجعوا واحد عو رجعتو له وطو يرجع بسكولا وطو لقيس لقوم أوجين إن يوتيوبر لو سوى ديكسدو وعدقاتي هاي لقوا صار شبطه شيء ذلك وعندي كسر الله ديركنا أيها إنتاسي كبس أبزري ما نكجري يسوع كاشتي دليل دليلتي بالكاس والعرب بالعربين وبيش أجانب أجانب تريد الحياة دليلتي أو حيب بالعربين إن حرانتو اللي يخطو من كبيرة ويجي ويجار الديار وكان قاعد أنا قلت سوى قاعد وقاعدين وأنا استقال لي وحكيكم معي مدرسة توقف توقف يا جماعة أقصد بالصمتين hadduu qabiil wax tarayo Axmed Rashiid iyo tobanka uu wato ogaaday wiilka isugu tagayaan ma ogaadeen. laakiin ina kale waa dhashi sayidka, waa dhashi sayidka, waa kuwii aabiyaashii halyeeyada ahaayeen. kuwaasuna waa dhashii amxaarada. sidee baa dareenkooda u siiyey iyagoo tobana in hadday dabadhasho iyo damiir iyo diin leeyihiin ay u dilaan ninkaa dhalinyarada. hadday ku xeerin waayeen islaamnimo ma ku xeerin waayeen Soomaalinimo, hadday ku xeerin waayeen sheekadu inta waa kasii dheeraanaysaa. baraha bulshada waxaan arkayay niman soo gelinaya muuqaalo iyagoo si toosa oo bareer cad u leh daarood waa kii wiilaayay awoyaashii. maanta oon ku jirno 2021 in dhalinyaradii Soomaaliyeed ee shalay qabiil ku baabaaday in maantana qabyaalad lasoo dhex dhigo, la rabo in dagaal sokeeyno dhaco, in qabyaalad lagu baabiyo. dowladdii iyo xukuumaddii waa la isla soo dhaafay siyaasaddii. hadda waxaa laga bilaabay olole baraha bulshada ah qabyaalad insaana loo soo dhex xuluuliyo. waddanku maanta meeshuu taagan yahay bilow inaan kasoo bilowno haddana oo laba saan madax yani laisugu diro oo madax laisugu haygeliyo. waxaan waa wax dowladda kasoo shaqeeyeen, waa wax siyaasiyiin ay kasoo shaqeysay, waa filim lasoo taxay oo sheeko dheera. laakiinse qof walbo oo Soomaaliya ama dhalinyaro ha noqdo ama duq ha noqde ninkii yani lasoo dhex mariyo silsiladaas ee baraha bulshada qabyaaladaas lasoo dhex gala ee lasoo dhex gala yani shalay daarood ba hawiye laayay, hawiya daarood laayay, yani waxaa sheekada baraha bulshada ka bilaaba
ee la dhex mariyo waa isagii damiirkiisa. laakiinse dhalinyar Soomaaliyeed haddaan nahnay waxaan ka codsan lahaa inaan meel uga soo wada jeesano. wixii shalay dib inoo celiyey, mustaqbalkeenii baabiyey, aytinkeenii baabiyey, kulligeen qurbayna wada geeyey, gabdhaheenii meel walba lagu kufsaday, tahriib, rafaad, qabyaaladdeed. waxaa maanta halkaana fadhiisiyana keenay ee waddankayga aan la joogi lahayn waa qabyaalad. shalay meeshaan ku jirnay ayaa la rabaa maanta in baraha bulshada nalagu keeno. Sharma Boy wuxuu ahaa salaankii lasoo raaciyey. waxaan waa laga soo fikiray, waa laga soo shaqeeyey. jaranjartii koobaad ee lugta lasoo saarayay ayaa laga dhigay ee loo soo saaray yacni daarood ahaan. waxaas wax ka weyn ayaa xagga dambe magaranaysaa dahay naga saaraa. laakiinse dhalinyarta Soomaaliyeed maanta anu waxaan aaminsanahay inay ka dharagsan yihiin wax walbaba, inay wax walbaba ay ka dharagsan yihiin. horumarka maanta aan ku tallaabsanay ama waddankeenu uu ku sugan yahay waxaa la rabaa in lagu halqabto. dowladda shisheeye waxaan usoo tashtay dad Soomaaliya oo caan ah baa waxaan ayaa lacag lagu soo siiyey si waxaan oo kale naloo soo dhex xuluuliyo, si dhalinyarteeni maalinba mid loo ugaarsado loogu dilo meel. hadhowtan ay ka dhex toronto laba qabiil oo la islaayo. waxaan sheekadan oo dhan waxaa wata dad calooshooda shaqaystayaal ayaa wata. filimkan oo dhan usoo alifay cid kastoo Soomaaliya oo magaranaysaa caan oo baraha bulshada caan ku ah oo la iibsan karo waa la iibsaday. lacag baa la siiyey. filimkooda waxaa weeye waa iiba cunay. maanta tan waa casharkii koobaad. innaga ayaa dameerkiina lagu eegayaa iisaan uga dhiidhino. haddaan maanta tan meel uga soo wada istaagi weyno ogow way nagu soconaysaa, aday kugu imanaysaa, anay igu imanaysaa, qof kale ku imanaysaa. haddaan meel looga soo wada jeesan dadka qabyaaladda wada oon meel la iska saarin oon geed lagu xirxirin meel xun baan ku dambeynana. meel xun ayaa inoo dambeynaysa haddaan meel looga soo wada jeesan dadka baraha bulshada qabyaaladda ka wada. haddaan meel looga soo wada jeesan meel xun baa inoo dambeynaysa. sheekaduna hadda Soomaali gudaheed bay ku koobanta. heer waxay gaadhaysaa YouTube-ka cidda iskale ayay gaadhaysaa iyo baraha bulshada waxa laga dhex wado. maanta cunug yacni nin dhalinyara oo maskiina in Kenya dhexdiisa saas lagu galo oo la dhaho yacni nimankan daarood weeye, awowayaashood magaranaysaa nimankan kale awowayaashood bay dileen. kidaakida waa wax boqolaal sano dhowr sano soo dhacay ayaa maanta la rabaa in dibna loo ku celiyo ka war. ilaah baan ku dhaashay. wax kasta way cadi. Sharma Boy baan heese u sameeyey, Sharma Boy baan kan u sameeyey. sheekadu way cadda. sheekadu Sharma Boy baan heese u sameeyey way ka weynta. Sharma Boy wuxuu ahaa tallaabadii salaankii koobaad. jaranjarta waxaa weeye meel laga fuuleelaya Soomaa. meesha ugu sarreysa ayaa la rabaa in la tago. meesha ugu sarreysaana meel kale maaha in labo madaxa la isula galo, baraha bulshada la isku qabsado, Soomaaliya ay gaadho, qabiiladu ay islaayaan, madaxa la isla galo. damiirkeena tan lagu tijaabinaya. damiirkeena Soomaali haddaan nahay damiirkeena ayaa tan lagu tijaabinaya. haddaan meel looga soo wada jeesan dadka yacni cadaqaatayaasha ee calooshooda shaqaystayaal haddaan meel looga soo wada jeesan oon maskaxdooda haddaynu ku shaqayno ogow meel xun baa inoo dambeynaysa.